بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقهرين وعن شعالها إن الله مهنق تبارك وتعالى أو مهنق دمانتي إسكاله، فله الحمد في الأولى والآخرة. الدون يا آخرة ربي سبحانه وتعالى مهنق إسكاله. مسلمين دائما markay hadal bilaabayaan ama Allah ay baryayaan waxay ku bilaabi jireen mahadnaqa alle. mar labaad waxaan jecelahay inaanu mahadnaqo hawlwadeennada warbaahintu dhibna way leedahay, dheefna way leedahay. waa hadba sidii loo adeegsado. haddii xumaan loo adeegsadana warbaahinta xumaan baa ka iman. haddii samaan iyo system fiican loo adeegsadana wanaag iyo horumar baa ka iman. warbaahintu maxay tahay? warbaahintu waa systemka iyo qaabka ay bilaaadmigu macluumaadka u wadaagaan, qaabka ay macluumaadka isu gaarsiiyaan. haddii nolosha bilaaadmiga taariikhda dib loo noqdana dee taasi maraaxil bay soo martay oo hadba waxay ku xidhnayd garaadka bilaaadmiga, horumarka uu samaynayo, systemka noloshiisa, waxaasay ku xidhnayd. xilliyadii hore waxaa xaqiiqi dhab ah in bilaaadmigu ay warka isugu gudbin jireen si mushaafaha amba orala afka amba ishaaraad qofka signalis la siiyo. laakiin inagu waxaynu joognaa xilli ay macluumaadku sameeyeen amba warbaahintu ay samaysay waxaynu odhan karno thawrad amba kacaan. bal waxaan odhan karaa bilaaadmiga maanta adduunka ku nooli warbaahintay maxaabiis u yihiin waa ina haysataa. xaqiiq dhiba weeye. warbaahinta waxaynu nahay maxaabiis. haddaad dadkeenna eegto wuxuu odhanayaa BBC ma gaadhi, Voice of America ma soo gashay, idaacaddii Hargeysa maxay tiri, jariidada Hiblaaye maxay qortay, internetkii ma akhriday. warbaahintu maanta kacaan bay inagu haysataa, thawrad bay inagu haysataa, thawrad khatar ay inagu haysataa. la yaabna ma laha oo dee bilaaadmiga oo dhan nolosha maanta qarnigii 18aad aakhirkiisii ilaa qarniga 19aad awalkiisii waa tii caalamka ay ka bilaabantay waxa loo yaqaano al-inqilaab as-sanaaci amba kacaankii sancada, kacaankii farsamada, oo waxay reer galbeedku yaqaanaan industrial revolution. dabcan siday u bilaabantay iyo meesha ay ka bilaabantay waxaas ku noqon mayno, waa taariikh qoran oo macruuf. marka maanta heerka ay joogno warbaahinta iyo qalabka loo adeegsado iyo systemka loo adeegsadaa waa mid aad iyo aad u horumarsan. wuxuu marayaa meesha qofka bilaaadmiga ee caadigihi aanu sheegi karaynin. warbaahintu waxay u qaybsan tahay maanta inta ugu muhiimsan 3 qaybood: qayb maqala, qayb muuqaala iyo qayb qoraala. waxaa laga yaabaa warbaahinta qaarkood in laba ka mida oo maqal iyo muuqaal wada samaynaya sida kamaradaha aynu hor fadhino oo kale iyo mikrofoonada ku xidhan waxaa laga yaabaa inay samaynayaan. marka warbaahinta maantu
noocyadaas ay leedahay qaar weyn uma qalla idaacada khayriya waad furaysaa waxaan kuwii khayriya ugu horreeyay intii aan soo gaadhay raadiyo transistaraho very primitive ho qalabkan aan jirino waxaan soo gaadhnay markaan anagu aanu yar-yarayn dadkii naga horreeyay waxay garanayaan tiyo misalba warbaahintu ay tahay waxaad aad kooban maanta halkay marayso waxay la tahay qof kasta waa uu ka dheegsan yahay waxa la yiraahdaa adduunyadu waxay noqotay qarya tuulay noqotay guri bay noqotay waxa soo koobay waa warbaahinta baaburada maaha waa warbaahinta kala jooga aad dhageysanayso waa warbaahinta Australia jooga aad dhageysanayso waa warbaahinta ka Moscow jooga aad dhageysanayso waa warbaahinta ka South Africa jooga aad daawanayso marka warbaahintu noocyadaas bay leedahay maanta caalam intaas ugu muhiimsan maqal muuqaal qoraal intaba way leedahay qoraalku dabcan uu ka horeeyay maqalkuna uu ku xigay xaqiiqo weey laakiin muuqaalkuna uu dambeeyay in kana maqalkii iyo muuqaalkii oo la isku dhafay ayaa meeshayaan waxa isweydiin la hadii aynu rabno dowrka warbaahintu nolosha ay ku leedahay inaynu fahamno maxay tahay faa'iidooyinka warbaahintu khadamaadka warbaahintu ay noo qabataa maxay tahay warbaahintu maxay noo qabataa maxaynu ka faa'iidnaa maxaynu ka helaa maxaynu ka dugsanaynaa maxaynu ka sugnaa dabcan warbaahinta noocyadeeda kala gedisan anoon tafaasiisheeda u galaynin nooc waliba wuxuu ku xidhan yahay hadafka loo aasaasay warbaahinta marka la aasaasayo amba miidiyaha la diyaarinayo TV la diyaariyo ama internet hala qaban qaabiyo ama idaacad hala furo ama jaraa'id hala qoro dائما أهداف بيننا ما أنت عارف waxaan ahdaaf lahayn ma jirto marka warbaahinta guud ahaan waxyaalaha inuu ka helo waxa uu horeeya wararka ka dhageysana idaacadaha inuu furnaa TV-yada inuu furnaa internetada inuu galaa jaraa'idka inuu akhrinaa iyo waxa la wixii kale ee warsida marka faa'iidooyinka aynu ku qabno warbaahinta waa un tusaalayaal kooban iyo muunado kooban baynu sheegaynaa ma caan yeelayna ama ma guul yeelayno marka waxaynu ka qaadanaa warar baynu ka helaa waxaynu kala kulannaa tacliin iyo aqoon jira TV-yo idaacado waxbarasho kala gedisan inoo soo bandhigta aqoon iyo education ayaynu ka qaadanaa iclaan iyo ogeysiis baynu ka maqalnaa nolosheena saameyn ku leh dacaayad iyo xayeysiis ayaa lagu gudbistaa maaweelo ayaa lagu gutaa warar baa lagu taxliiliyaa amba lagu faaleeyaa مشاكل bulshada ayaa lagu lafaguraa marka xaqiiqatan maanta warbaahintu waxay leedahay fawaa'id aan la koobi kareyn faa'iidooyin fara badan bay bulshada u leedahay laakiin ma oran karayno warbaahinta xaggeeda wixii inaga soo gaadhaa dhammaanteed waa khayr iyo wanaag iyo sama oran karo marka qaarkood warbaahinta waxa loo adeegsan karaa dhinacyo saameyn xun ku leh bulshada tusaale ahaan warbaahintu waxay raadayn kartaa oo ay raad ku keeni kartaa akhlaaqda dhaqanka suubada ummaduhu ay leeyihiin waa la isku taasiiriyaa warbaahinta hadii cid aan kula dhaqanayn aan kula diin ahayn ay wado waliba ka qalab weyn waxa
way ku taasiirin BBC da iyo idaacadaha Mareykanku طبعا فائدooyin bay inoo leeyihiin laakiin istaraatiijiyad dalalka ay ku yaaleen ay leeyihiin way fulinayaan inamada iyo hablaha Soomaaliyeed ka soo hadlaa istiraatiijiyad ay leeyihiin kuma socoto ee dalalka wadanaha waa tusaale waa intayna waynu naqaano istiraatiijiyad ay leeyihiin oo ay doonayaan inay saameyn iyo raad ku yeeshaan dalalka loo jeedinayo warbaahintaas ayay ku xirantahay mararka qaarkood dhaqanka iyo taqaaliida ay wax ka bedeshay TV baa la taawanaya internet baa la gelaya ina Kenya wuxuu arkayaa mid ilaa halka kiiloomitir xiran isna bas ina yar Afrikaano aqoon aan helino dhaqankiisa aan adkaano laga yaabaa iimaan iyo tarbiya aan helino waxa laga yaabaa isna maanta ka arko inuu isna ilaa fooda dusheeda inuu soo kala xiro laatii shariicadu ay diidaysa qasci shariicadu ay diidaysa in timaha la kala xiro oo muxuu ahaa heer loo kala sameeyo waxa shariicada islaamka ay diidada ka laakiin taamad kama hadlayno baraka qaarkood warbaahinta waxa laga bartaa waxyaalo jariimo keena waxyaalo criminalisa filma la soo deynaya hadii la ku rooyo waxyaalo fara badan baa la qaaraya qaar baa laga baranaya tuugada laga baranaya yani waxyaalo fara badan ma aha warbaahintu daa'iman mid dhamaystiran marka qaarkood warbaahintu waa dagaal baa lagu galaa psychological war ayaa lagu galaayo waxa la isku dayay in ummadaha lagu taasiriyo oo lagu cabsi geliyo ayaa lagu qabtaa marka dalalka reer galbeedka xoogga waaweyn caalam fara badan warbaahinta ay ku haystaan iyagoo ciidamo soo gaarin oo diyaarado soo dirin oo dabaabaad keenino guryahooda iska jooga TV iyadoo idaacadahoodaasi frequencies khatar ah lagu furayo deedna dagaal bay ayay wadaysan marka marar fara badan wax fara badan oo xun oo amba qowla amba maqala amba muuqaala ayaa ka imanaya shariicada islaamku waxay doonaysaa wixii inoo imanaya inay wax wanaagsan noqdaan inna alladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum adabun alim Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay kuwa doonaya in faahishada iyo foolxumada iyo sinada iyo dhaqanka xumi inuu dadka muslimiinta ah dhexdooda ku baaho oo ku faafo kuwa sidaa jecel ilaahay agtiisa cadaab kulul bay ku leeyahay subhanahu wa ta'ala يعني ورباهين إسلام الدنيا وحوي ورباهين خير وضح لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لا يحب الله الجهر إن هذا الحن لو قلت واقه وبرشد الله كينه الله سبحانه وتعالى ما تعالى مركا ورباهينتو وحي لا حي سامين بلارن سامينتا ay leedahayna waxay ku xiran tahay waxaynu oran kaynaa arkaanul i'laam waa maxay i'laamka amba warbaahinta amba miidiyaha waxaraad kule nooca ay tahay amba meesha ay ka soo baxdo hawl wadeenadiisa cid wada ee hagaysa iyo cid mustahdafka ah ee ay ku socoto arkaantan ay leedahay muxuu yahay nooca warbaahinta la isticmaalaya maanta caalamku isticmaalaya nooca warbaahineed ee caalamku u isticmaalaya maxay yihiin ma TV-yaan isticmaalaynaa ma idaacadan isticmaalaynaa ma internetan isticmaalaynaa ma kuwa aanu ma kala wada aqaano aad xariif uma hiin ma qaar ka sii dambeeyay oo casri ah imika soo baxayba technology wuxuu maraya meel aan la faaleen karo speed of light box socda labadii sanadood wax cusub wixii hore quba weeyay xaqiiqdaba weeyay markaa wuxuu ku celiyay warbaahintu meesha ay ka soo baxdo nooc muxuu yahay nooca warbaahineed muxuu yahay ma idaacadba ma TV ba noocani masterkiisu waa xagee madal islaam ka imanaya madal aan islaam ahay ba ka imanaya muxuu ahaa waxa kale ku xirantahay saameynta iyo raadka ay leedahay waxay ku xirantahay cidda gacanta ku haysa
رسول عليه الصلاة والسلام هاي لي عدة وعدة توجيه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كلكم راع إسلامك السلبية ماله عد أورانيسا أنا حل إما صارنا عد أورانيسا ما تشوف قف كاستو أو مسلم واحد دبان حل بعض دبا ما ركت قف حل دبان أنا حل دباني ما تشوف لكن طبعا مسؤولية وكلا وين تاس طبيعي تاس محوها وشيء كمعروفة وعد ولا وقت لكن waxay ku xiran tahay dadka markaas waxa la doonayaa hadii dadkii muslimiinta ay warbaahinta kaalin ku leeyihiin ee waxa la rabaa dadka hawlwadeennada warbaahinta wada ee muslimiintii inay wax wanaagsan keenaan ninba waa xaadara ka qayb galay waa bari hore 780 bay ahayd warbaahintu ka hadlaayay muslimiinta iyo dhibaatada ka haysata markaas wuxuu yiri inaga kawaadirta amba hawlwadeennada warbaahintu waxaynu uga baahanahay inay noqdaan gatekeepers albaabka ninkii gaarka ka ahaayo joogay inagu hay'ado waaweyn oo caalamiga barihin hay'adaha waaweyn ee caalamka cidda waynu naqaanaa kuwan cidda wararka qaana waynu naqaanaa muxuu ahaa hay'adahaas dhaqaalahooda iyo aqoontooda iyo farsamadooda waan ognahay inaga waxaynu waa yab marka inagu wararka aan qaadanayno iyo macluumaadka aan gudbinayno iyo waxyaalahan soo deynayno waxaan rabnaa hawlwadeenadeena iyo dhalinyaradeena rag iyo dumar inay noqdaan gatekeepers qofka gatekeeperka maxaa looga baahan yahay waxa looga baahan yahay aqalka cidii soo galaysana ee shaqo kulana inuu soo daayo oo ahlan wa sahlan yiraahdo cidii aan loo baahnayna inuu yiraahdo iska raali ah marka sidaas oo kale weeye warbaahinteena dadka gacmaha ku haya waxaan leenahay mas'uuliyad baa idin saaran مسؤولية بأمتنا كسارة لكن كذا مسؤول كسارة هي أقوون تيجي مسؤول كسارة تهاي محوها سماه هذا مسؤول كسارة يهين مركا وعلى كمارمان مركا ورباهين تسامين تيدا مش وقالب كورباهين الاستعمال قالب كاس يسنترس كاس مش أي كيالان حوشة عدة أي وضع يعد اللي قاعد سنة ورباهين هي الله تلقى يكون وجهانته أمده يكون وجهانته حتى أمده يكون وجهانته طبقة ذيبا لا ربع بنمشي قاربة حروت اللوس ودايا قاربة تبرك يكون وجهان قاربة أقوياء يكون وجهان قاربة بيرليل يكون وجهان قاربة عيد المال يكون وجهان مركا سامين تيارات كأي كتليسو وحاكم ذا عدة يكون وجهانته الله تلقى مركا قاركود با warbaahinta dadkii loogu talagalay dad aan loogu talagalin oo faduuliyin ay gaadha kusay saameyn amba xun amba wanaagsan ayay ku yeelata waxaan isleeyahay warbaahinta casriga ay maanta jirta waxa ugu saameyn badan TV-yada iyo wixii TV-yada lamida ee maqal iyo muuqaal ayaa ugu saameyn badan haddaynu fiirino dhammaan noocyada warbaahineed amba dhammaan miidiyaha caalamka la isticmaalo waxaan isleeyahay wixii labadaas sifo wata maqal iyo muuqaal maxaa yeelay dareemayaasha qofka bini'aadmiga laba ugu muhiimsan ayay raad ku leeyihiin waa maxay as-sam'u wal basar waa maqalkii iyo aragii maqalka iyo aragana marka ilaahay subhanahu wa ta'ala as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaa'ika kana anhu mas'ula wixii la maqlaayay waa la isweydiin maxaad dhageysatay ma waxa wanaagsan iyo sameeyo khayr ma waxa dhageysatay wax xun oo khatar kugu ah marka dareemayaasha qofka bini'aadmigu oo wax ku dareemo waxaan aad dareemaysaa ee aad maqlayso ee aad dhageysanayso waa waxa qaab iyo hab ku dhisaya waad ku dhismaysaa waxaana ku fareem gareynaya noloshii marka mar hadii arag maqal iyo muuqaal TV-gu uu leeyahay iyo TV-ga wixii la mid ah ee maanta muxuu ahaa la isticmaalo waa kuwa ugu saameyn badan waa kuwa ugu khatar badan ama ugu faa'iido badan waa seef laba dhinac leh midida la qaato mididu sharna way noqotaa khayrna way noqotaa dad midida qaadato
وديفك بسم الله الله أكبر ديفك كقول عزو كلي قوسته خطرة قوسته خير بين هذا هدي عدد كلا قاشوا طريقة سلسلة جام قد قصوا تذكر كفوا فجأستنا ده خطرت هذا إلى مركا وربعينته واساسه وسيف دو حدين وسيف لبعض عليه وسيف لبه هدف له مركا وحا أسامين بدن والتأثير بدن محوها تي فيك وحي مقل تي في كريان أوراني وحكاستو أو مقل إيا موقاله قفك بلا آدمك سامين تأي كل ذهب آد إيا آد بلارا ما كاسا إله إن السمع والبصر السمع والبصر محاي لا اسم دائما سمعي بصرك سمعي بوه الرئيسية محاي له الرئيسية وضرينك أخر بفلو بقروة وقفك بلا آدمك المها يرهد الشيء حتى ساقط هذا حلقة مع المهر إن آد أرق لكن حتى ساقط هذا بهودي مركا ضرينك وحويا ضرينك الله بدا أيها بفلو بقروة مارته كذا يسمعوا حي لهذه كذا وسيلة التربية لا بقى إديكيش كمان عالم كلا قش وحلو تشيلين إيش هي دكتة دعوي سماها ما صومالين وحيا إيش هي دكتة تبى دعوي إيش واحد دكتة دعوي حقيقة دعوية مركي التربية دي هي إديكيش كيل الدراسيين سي المها نمو جيسة يو كوريتانك المها لقينا وح أخر كرايه وحوي ومقلك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا وحلو وحي لقيسته إيا وحلو وحي أرقى خدعة إيا وحلو وحي قلب خدعة سامين سن يحمد أنكبوله وحاصودا والقويتي سيعتاد وحن لقيستي وحن لقيستي بالغ وحن وناكسن لقيسه وحن هايجني وحسن ايج وحن waa cawriye ceeba ka dheero baa la yiri qalbigaaga wuxuu yaani galin waxa dhan xiliba wada leeyahay aragga iyo maqalka iyo qalbiga dareen bay wada leeyahay waati rasuul kaleey salaatu wasalaam uu ala inna fil jasadi mudqa idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb marka ترجران بيوديريان واحد أركتي يا واحد مقاشي لبضبا تارر بيوديريان توسه قلبك مركا قلبك وحي عندها يكي درك أيوه درك بحنايا أم بهوي كو أبوري يا حمان أم بس هم يوناك بكو أبوري مركا إسلامكو ورباهيته وحي كإيمانيا وحي وناكسن فائدة وسود ويننا وحي وناكسن فائدة له وسود ويننا أما فائدة الدنيا هاتو أما فائدة آخرة هاته وسود ويننا مركي رب سبحانه وتعالى وكورنا عليه رسولك الدين تي أوليمد وحو كيري وحو قرآن كيري في سورة الأعراف المباركة وحو رب الله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلهي سبحانه وتعالى على لسان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وحي وناقسنانا والإيدين أقول يهي وحي حمانا والإيدين ديديا وحا وناقسنا الذي أقول يا وحا كميدا وحا مقليسان وحي وناقسنا مقليسان والإيدين أقول يا وحي حنيد مقليسان والإيدين ديديا وحي وناقسنا كهابسان والإيدين أقول يهي وحي حنيد كهابسان والإيدين ديديا وحي وناقسنا عنسان والإيدين أقول يهي وحي حنيد عنسان والإيدين ديديا يحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وحل وحي حنا والشيء مركا ورباهنتو وسيفتاس له لبدا دينع waxay u baahan tahay in dhinaceeda wanaagsan laga faa'iideysto dhinaceeda xunna laga muxuu ahaa foojignaado ma garay 2 sano ka hor baan waxaan dhageysanayay robot ay ingiriisku soo saareen waxay yiraahdeen waan dhageystay waxay yiraahdeen
يعني خطرتها ay leedahay warbaahintu gaar ahaan kan maqalka iyo muuqaalka leh waxay yiraahdeen dalka Ingiriiska aqoontii boqolkiiba 40 bay hoos u dhacday dalka Ingiriis aqoontii ubadku boqolkiiba 40 bay hoos u dhacday maxaa ku dhacay waxa waa video revolution waa kacaanka oo wada kan maqalka iyo muuqaalka kacaanka oo wada weeyay laba ceebood buu yeeshay طبعا وحي ونكسان halkiis ay loo yaalaan ataan sheegnay quraan baa lagu akhri karaa xadiis baa lagu akhri karaa khayr baa lagu sheegi karaa laakiin waxay yiraahdeen laba ceebood buu yeeshay mid waxay yiraahdeen ilmihii waqtigu ka qaadaya waa time consumer ilmihii waqtigi ayuu ka qaadaya markaas inaga waxa laga yaabaa islaanteena miskiinadii inay taa kaaga jeedeen ordo TV-ga daawada xaruurti geebigooda wada direysaayo musalsal baa ka socday ornaysaa geebigooda wada direysaan iyaduna intay madbaxay waxa ka dadku bashqad waxa laga yaabaa 4 saacadood oo wax wada qabsan lahaay waxay yiraahdeen waa taqriir si cilmiye loo diyaariyo waxay yiraahdeen waqti badan buu qaadaya in calabaadna waxaan ka soo baxaya waa rayso intelligence-ki taasiir iyo influence ku yeeshay bay yiraahdeen marka waxay u baahan tahay dadkan ka faa'iideysanayaan إلى سيف عن بفايدستان سيدا وجه بقول بفايدستان أو المهير برنامج هذا الله أقولنا وكوا عيكية برنامج هذا محن كوي الدواء اللي بيسوي برنامج سأقول لهم الدواء ده سوى ردك تميل أنا عروت الجاري مركا تي في النفتيزة يا مقالك يا مقالكم ميلا قاركوا واحد برنامج هذا قاركوا وحالي عروت الجاري وين نقطة مركا وإلا هو وين هو وحي bahda warbaahintu ay soo muxuuha iskriinka soo mari waayeen iyaga ka soo gudbay khalad leh iyaga ka soo gudbay waa in gurigu hagaa weeyaan gurigu waa inuu hagaa waa inuu aabuhu og yahay waa inuu hooyadu og tahay waa inuu hooyadu og tahay ilmuhu muxuu daawanaya waqti intee lagu daawanaya muxuu faa'iido ka helaya waa inay ku qiyaasan tahay laakiin haday noqoto haygaga jeedo haday noqoto sidoo ugu sii jeedo ayuu ku findigi sida ugu sii jeedo ayay xaaran sida ugu sii jeedo ayuu qeyrkii kaga had wax xaqiiq dhaba weeyay marka waxay u baahan tahay yaani waxa hadalka ay geynaya waxa weeyay warbaahintani waa seeftaas labada dhinac leh warbaahinta wixii nacfi iyo faa'iido leh waan qaadanayna wixii dhibaato leh waan ka tagayna waxaan qaadanayna wixii qofka faa'iido u leh waxaan ka doorsanaynaa wixii qofka dhibaato u leh waxaan qaadanaynaa wixii qoyska faa'iido u leh waxaan ka tagaynaa waxaan ka doorsanaynaa wixii qoyska dhibaato ku ah waxaan qaadanaynaa wixii bulshada iyo mujtamaca faa'iido u ah waxaan reebaynaa oon oodaynaa oon hor joogsanaynaa wixii bulshada dhibaato ku ah waxaan qaadanaynaa wixii aqliga faa'iido u ah inuu fikro inuu hore u maro keenayo maxay marar fara badan TV-yada waxa laga soo daayaa dad khubara dad cabaaqira muxuu ahaa falsafadooda tijaaribtooda nololeed muxuu ahaa wixii nolosha ay la soo mareen ayay ka qaadanay marka wixii wanaagsan aqliga korinayo kubcinayaan qaadanayna waxaan ka hortageynaa wixii xun ee aqliga khamri ku ah ee aqliga leexinaya waxaan qaadayna waxa wanaagsan ee jirka faa'iido u ah waxaan diidaynaa dafirana horjoogsanaa wixii muxuu ahaa dhibaato ku ah hadii guud ahaan la eegana wixii nolosha faa'iido u ah ayaan qaadanaynaa wixii nolosha dhibaato ku ana waan awdaynaa waan horjoogsanaynaa markaas waxaan leenahay inaga warbaahinteenu waa inay noqotaa mid aan hadaf ka leenahay hadafkan ka leenahay hadaf fiican waa inuu yahay waa inaanu hadaf destructive aan noqon wax duminaya waa inaanu noqon hadaf wax dhisaya hadafkeedu waa inuu noqdo warbaahinteena muxuu ahaa dadka wadaya waa inay leeyihiin muxuu ahaa damiirkii iyo aqligii iyo garashadii loo baahnaa hadafka uu gudanayo oo qofka ka soo baxaya wadaya isaga naftiisu waxa loo baahan yahay qof muxuu ahaa
مسؤولية إذا قادر يا دوات الحديث كرسول عليه الصلاة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته